maanta oo bishu tahay 25 December sanadkuna yahay 2025 dhammaadkiisii waxaan halkan iskugu nimidnay inaan bayaamino wixii aan soo marnay komishanka madaxweynaha iyo xisbiga wadani iyo sheekadii shalay ku mulaaqayeen meesha inaanay sal iyo baar toona iyo xaq iyo xuquuq midna ku fadhiin iyo sharciyo toona inaan dadka u bayaamino komishanka saddexdii bishii 7 ayaan u gudbinay wixii ay soo jeediyeen oo quraal ah waxay soo jeediyeen ma diiwaangelintii horaan ku galnaa mise diiwaangelinta cusub aynu qaadnaa iyaga soo jeediyey waxaanay option 1 iyo option 2 iyo option 3 aad maqasheen optionka koowaad macnaha ikhtiyaarka koowaad iyo ka labaad goobuhu bay kala duwan yihiin tirada goobaha waa isku mid uun diiwaangelintii horaan la isticmaalo diiwaangelin cusub aan qaadno saddexdaa ay soo jeediyeenna midna goobuhuna isdheer yihiin taa hore isku mid yihiin diiwaangelintii horun ay tahay iyo taa dambe cusubiba waxay yidhahdeen 157 cishay qaadanaysaa muddadu wax muddo oo dib u dhigisa oo doorashada dib u dhigayaa kuma jiraan bay yidhahdeen 157 maalmood weeyaan bay yidhahdeen kolkaan fiirina annagu in dib u eegis ku samaynay waxay noola muuqatay in loo baahan yahay in diiwaangelin cusub la qaado asbaabtu maxay tahay diiwaangelintii hore 2016 ayay ahayd 10 sano ka soo wareegtay 10 sanana isbedel baa ku dhacay dadka qalabkii oo gaboobay aaladihii lagu shaqaynayay oo gaboobay imkaaniyaadkii la isticmaalayay oo gaboobay wax halkaa yaalla oo xog ah oo lagu hawlgeli karaa nooma muuqata annaga noomana muuqan markaan dooranaynay ikhtiyaarka diiwaangelinta cusub markaan dooranaynay waxaan ku qanaanay riboodhadii ay sameeyeen khubaraday iyagu keeneen ay lacagta ka bixiyeen ee talada siisay ayaan raacnay taladoodii waxaan dadku waxay u baahan yihiin diiwaangelin fiican diiwaangelintan iyo xogtan inoo taalla meeshu 2016 baa la sameeyey markii hore way shaqaynaysay markii dambe waa la farafareeyey ma qabanaynin ku celcelinta isku beddelkii ma soo saarayn goobihii dhowr iyo 40 goobood bay isku magac ka dhigtay tirada la diiwaan geliyey goobaha iyo tirada inoo qoran ee soo bandhigeenna 1,200 baa u dhaxeeya 1,200 goobood komishanku madushu kaga darsanayay xagee ka keeneen waa la farafareynayo nin walba markuu soo gaadho wax ku darsanayay waxbaa lagu darayay waa la dhuuqayay uun waxaasina dublicate-kuna amba kool celintuna way fara badnayd meelaha kiishash lagu haystaa kiishashba lagu haystaa waxa la dooranayaana waa xildhibaano kuwan sacabka tumaya ee doorasho war doorasho waa la geli doonaa laakiin doorasho wanaagsan baa la gelaya doorasho in la gelayo la iskuma hayee mid hagaagsan ayaa la geli oo heshiis lagu yahay oo caqli ku shaqaynaysa 3 bishii 7 2025 ayaan anagu kolkaan u gudbinay go'aanka iyagii waxay nala tahay annaga oon kulmiye is arag wada tashina yeelin isku mowqif baan noqonay oo maxay u socodsiin waayeen labada xisbi hadday isku mowqif noqdeen
ilaa intii la helayey mid ka mida xisbiyadaasi mucaaridkaa la helayey madaxweynaha iyo waddani way meeraysanayeen 3 bishii 7 in gudbinay 12 bishii 7 baan komishanka kulannay waddani meeraysigu bilaabay maalintaa iyo xukuumaddiisu way ku jireen ilaa aakhirkii u dambeeyey ilaa waxay doonayeen ay gaadheen oo ah in ay cid la shuraakowda oo dibindaabiyada kula shuraakowda ay helaan madaxweynuhu 15 bishii 7 ayuu noo yeedhay yeedhmadaasi waxaanu u sheegnay mowqifkayaga wuxuu yidhi halkay laba xisbi isku raacaan unbay taladu noqonaysaa dee laba xisbaan ku wada soconnaaye fuli baan nidhi yaa isku imanayaba ilaa komishanka biilkaa loo hayaaye nin biil loo hayaa ma soo fadhiistee wayna raalli geliyaan cidda biilka bixinayse ila odaygu reerka wuxuu ku xukumaa biilka yar u bixiye xukuumadduna waxay dadka kaga adag tahay biilka yar bay haystaa wax kale maaha biilkii yaraa buu dee ku saqajaamiyo wuxuu yidhi waxba inii dhihi maayo haddaydaan waxaan aanu doonayo aydaan yeelin horteedna 7 wasiir baa u tegey hortayo oo yidhi taa diiwaangelintaa hore inoo isticmaala lacagta yar laho lacag badan ma haynee taa u socodsiiya annaguna taasaanu madaxweynaha u soo jeedinoo waa khalad baad samayso raalli gelin buu bixiyey maxaa geeye baan ku nidhi sodii shalay diidanaayey kula xumayd wixii shalay kula xumaa baa kula wanaagsanaaday nin waliba markuu kursiga fadhiisto ayaa wixii shalay la xumaa ay la wanaagsanaanayaan hadduu musuq ka hadlayey hadduu wax la farageliye ka hadlayey hadduu dibindaabyo dal ka hadlayey hadduu dal la iibiye ka hadlayey mar alla markuu kursiga fadhiisto unba afarta ku xeeran odhanayaan ree hebelba saasay samaynayeene adiguna samee sidan qofkiiba qofkii wax sheegayey maahaba qofkii shalay wax doonayeyba maaha waa qof cusubba warsoodagii shalay sidan ku dhibaysa adiga maxaan kuu geeyey meel raalli ahaada halkay laba xisbi isu raacaan ubay noqonayeen maxaa isu raacay dee yaa soo fadhiisanaya komishankiiba komishankii waxaa la yidhi ilaa aan soo helayno xisbina labeeya ma yeedhi kartaan ma yeedhi kartaan baa la yidhi 15 bishii 11 ayuu haddana noo yeedhay wuxuu yidhi kol haddaynu heshiin weynay aan komishankii iskaga celinno oo markaad kulmiye soo heshay baad komishanka ku celinaysaa baa ku nidhi ila kolka hore wada soconay kumaad celinaynine ma yeelanaa ku nidhi taa xogtan taalana lagu hawlgeli maayo halkaasaa madaxweynaha isku kacay dambaysay dabadeedna aan isragnaa nidhi xisbiyada annaga casuumina annagii 20 bisha isugu tagnay hotel Asood waxaan doonaynaa in la falanqeeyo oon isla egeegno siday wax ku roon yihiin annaga way naga dhan tahay haye kaahin baa yidhi xirsiyow xirsi dee waanay komishanka ku celinaa arrinka annaguna komishankaan ku celinay dee komishanka haddaad ku celiseen iyo haddaydaan ku celinba komishanku ninna ma khasbadee annagana khasbi maayo waxaan noo cuntamayn oon dadkaygana u cuntamaynin annagana noo cuntamaynin oon arkana wuxuu yahay waxaan damaanad u qaadnay inaan bulshada u horseedno wanaag waxaan u horseedaynaa wanaag waxaan ka ilaalinaynaa wax alla wixii dib u dhac ku keenaya waxaan ka ilaalinaynaa wixii corruption ku keenaya istabamarin xatooyo wax la xado war wax kiishish lagu haysto meeshan ayaa jira xogta meeshaa taallaa waa ruufad haddii lagu dhaadhacana lagama bixi karayo waxay leedahay 100 gacmood oo ka shaqeeya rag baa moomilada ku haysta xogta dhana lagu sheegayo xog ay hayaanba ma jirta nimanku xog ay ku hayaan meesha ma jirto aqoon ay koriyeenna ma jirto
وقيبت فرسمة ما يكورين بقى والله وحي خبراء وكانتينا كل كي اللي يستيدي ويكقعتين وحلونا نابيني وحي waxa in la garanayn baa lagu shaqaynayay maalintii doorashada madaxtooyada la geli doono commissionku waa kuwa way nool yihiin midna kama dhiman waxay yidhahdeen doorashada laguma geli karo sidan waayo khabiirkii baa nagula taliyey doorashadan sidan laguma geli karo bay yidhahdeen aniga nin baa la hadalna waxaan idhi ujeeddadii inuu doorashada dib u dhiga saanay qoraad u sheegi lahaydeen war maanta cid sariiraysa ma jirtaan ile dadka ha loo sameeyo diiwaangelin saxa oo toosan oo tartiib ah oo nidaam wadata oo isdaba marin lahayn oo kaadhar la urursadaan lahayn oo kuwa kiishis lagu shubtaan lahayn iyo kuwa jawaana lagu shubtaan lahayn yaan leenahay meeshaasi alcumuum wixii su-aalaad ka weydiinaysaa wala inaga jawaabi doonaaye wax yaallaa meeshaa ma jiro khubaradii siday ku talisay wax la hagaajin karaana ma yaallaan laakiin iyaga oo danta xukuumadda fulinaya waanu kiliin garayni waanu nadiifinayo cid baan u yeedhinayo komishanaduna cid ha keensadaanoo uma waxa la farafareeye la dilay ee faarka iyo ciirta isku jira noqday ee ruufadka noqday ee daamurka noqday ee isku dhegay ee xanjada noqday ayay cidi hagaajin kartaa lama hagaajin karo lagumana geli karo doorasho madaxweynuhu iminka wuxuu la meeraystaba wuxuu yidhi iminka haatan iminkaa nii soo diraya lacagta buu ku yidhi miisaaniyadda kuma darin maaqal uu leeyahay baa maanay ahayn mashruuc qaran ahayn doorashadu ma wax qarsoon baa oo la qariyo muxuu ugu sheegi waayey miisaaniyadda ma kala garanayaba malaha hadda ninkaasi guddoomiyihii golaha wakiiladana waa dhowr iyo 10 sannadood mashruuca sharci kolkuu qaynuu noqonayaa oo marka golaha wakiiladu ansixiyo lacag aan ku soo aroorin miisaaniyaddana oon miisaaniyadda lagu sheegin oon ku sheegnayna lama isticmaali karo marka miisaaniyadda waxba kuma darin kuwan sacabka tumaya ee budhu badhaada haya ee caruurta sacabka garaaca la yidhi ee xalay meelaha kaa hadlayey waxaan u sheegaynaa miisaaniyaddaba kuma jire maxaa lagu qabanayaa doorashada kuwan go-aan baan gaadhna lihi maxay ku shaqaynayaan ma jeebka cerey ku shaqaynayaan mise qaran bay u shaqeeyaan xaguu ka keenaya lacagta ma gacan libaax buu ka keenaya lacagta halkaasuu malaa khasnad digtan marinaya khasnad baa u taalla halkaa halkaasuu ka keenaya lacagta annagu maarkana dee madaxweynuhu hadduu diyaar u yahay doorashada halkaasuu ku sheegi lahaa hadduu diiwaangelinta diyaar u yahay halkaasuu ku sheegi lahaa tii horena kuma darinee 25 ka dhammaatay 2025kii taana kuma sheegin miisaaniyadda tan 26 kaana kuma sheegin marka macruur buu la hadlayaa horta ninku dadku macruur baa war isla yaab dib isku sax haddaan sasaxayna dee adaa ka jawaabi doonaa wixii sharciyaddu kaa siiso ayay leedahay layskagana hadhi maayo kursiga kolka la fadhiistana laguma noqonayo wax lagu daa'imo kursiguma noqonaye kursigu haddii sifa sharciya loogu socon waayo waxa laga helayaa ciqaabtiisa ayaa laga helayaa waajibaadkiisa ayuu wax waliba leeyahay ciqaab iyo waajibaad baa iskarab yaalla waajibaadkana ha laygu sacabtumo wixii ciqaabana waan ka dhuumanayaa ma suurtoobayso u geli mayno dalka dibindaabyada kale ka socota maalin gaaraa laga hadli doonaa waxa socda hadday xag amni tahay xag dhaqaale hadday tahay iyo waxa socdaba laakiin maanta waxaan ku ekaananaa doorashada
doorashada lacag kuma jirto waynamada yaryar loo sacabka tumaya xalay tiktok taageera go'aanka commissionka go'aan la taageerayaa ma jirto commissionkuna uu sanbiririxday laba la hinjibo hungurigii horeyn jiray baa qaaday hunguriga cirra inoo haya wiilaa cirra raacno anaga hunguri naga helayaan annagu wax saxan sheegaynaa hungurigina uma hayno hunguriga dalka uu ka dhaxeeya dalka dadka hungurigina si fashar ayaa lagu qaataa kooxda yara cirra ku xeeran iyo cirra waxay istuseen bahalihii kiishashkaan ku haysannay haddaynu daadinno waxba heli mayno ugu yaraan 30 xildhibaan ilaa 40 xildhibaan waa inaan helnaa waxba dadka uma kala qarsoonaa kiishash baa lagu haystaa waan ognahay laguna geli maayo doorasho taa dadkana waxaan u sheegaynaa in ay halkaasi waxba aanay ka jirin boob iyo dhac ayuu ku talagalay cirro nin qabow baad moodaayo miskiinaad moodaayo aan waxba daarayno ya allah intay barteen dadku yaraa intay barteen baa yar waxa weeye arrinkiisu waxa weeyaan arrinkiisu ninka la yidhaahdo madaxweynaha ayaa ku shaqaynaya commissionka isagay u shaqaynayaan commission dhexana maaha dhexnimadoodana su-aal baa taalla commissionku way dhex fadhiyaan way dhooqaysan yihiin wixii aan qarinaynay ee meesha yaallayna xog taallaa ma jirto isku beddel ma qabanayo ku noqosho ma qabanayo goobuhu waa isku magac tirada goobahaee ku jirtaa 1000 jarjar bay isdheer yihiin xaggay ka keeneen 161 qof baa duplicate siday uga nadiifin karaan 1200 baa goobaha saa'ida siday uga nadiifin karaan goobahan saa'idka maxaa keenay kuwa isku magaca maxaa keenay meesha inama yaryar baa iskaga shaqaysta iyaguna war uma hayaan halkanay fadhiyaan doorashaan qabanaynaa war doorashaad qaban kartaan ma jirto ha la qaado dhaata saxa oo clean ah la qaado oo nadiif ah la qaado yaan leenahay inta taa la gaarayo saaka iyagu shalay go'aan bay rideen annaguna go'aan baan ridanaa saacaddaa laga bilaabo wax wada shaqayna lama yeelana commissionka waan hakinay wada shaqaynta commissionka ilaa intay ku soo noqonayaan arrujuuc ila alxaq ilaa intay xaqa ku soo noqonayaan waan hakinay annaguna wada shaqayntoodii waxaa kaloon ka qaadanaynaa oon ka soo celinay xubnihii naga masilayey ee xagga farsamada noo joogina iyaguna hakintaasay ku jiraan oo ka soo noqonayaan halkaasaan isla gaadhaynaa ha u bayaamiyaan shacbiga waxay hayaana wanaagsan annaguna waan u bayaaminaynaa waxa khaladaadeen aragna waan u bayaaminaynaa madaxweynuhuna inuu doorasho doonayn dee miisaaniyadiisaa iyuu ku dari lahaa diiwaangelinna ma doonayo doorashona ma doonayo hahey shaadiray baan ku daysanaa buu yidhi islaam baa yaa aqalka aan rari aqoonin oo reerkaa guurayoo waa loo rari jiray marka kolkii reerihii dee galabtii la furayey ayuu yidhi yaa shaadiro odaygii baa yidhi shaadiro ma ku daysanaa buu yidhi caawa dee awrku ha rarnaaduune madaxweynuhu halku marayaa iminka shaadiray ma ku daysanaa weya kursigii waan fadhiisanay halkaan aan ku daysana weeyaan wixii khaldanaya wixii saxanaya waxbay nagama gelin aan ku daysana weeyaan taana lagama aqbalayo waxaan leenahay isagaa farafareeyey 7 wasiiruu u diray shaqadii maalintii ay qabteen buu ilaa maanta isna wadaa mana aqbalayno goorta commissionka iyo madaxtooyadu isku marf noqdeenna isagaa sheegi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warta waxa weeyaan magacaaga muxuu ahaa warta waxaad weydiinaysaa iska hubisaahayd waxaan ka hadlayay waxa ahayd duplicate ma qabanayaan kugu yidhi isku beddelkii uu shaqayn waayey alla wixii farsamo hoosaada ee loogu talagalay wax lagu saxaa way shaqayn weeyeen baan ku kun gooboodoo saa'idaa ku jiraan ku yidhi 161 duplicate ku jiraan ku yidhi waxa ma nadiifin karaa baan ku yidhi maxay hore ugu qaban waayeen hore u nadiifin waayeen hadday shaqaynaysa taasi
xogta inoo taallaa xog shaqaynaysa maaha hore u shaqayn lahayd taasi waa taa oo warkaygii bay ku jirtay uu ku dhaafay malaha tan kale xisbiga kulmiye dee mowqifkiisa isagaa iskale laakiin wax weeye waa nii sheego waxa la raadinayey labada xisbi midkoodu la helaa la raadinayey dee waa la iska faa'iidaystay